waan salaamaya meel kastoo dunida joogtaanba maanta nasiib wanaag waxaan idin hayaa wixii ka dhacay boorkii Djibouti iyo cidii ka mas'uul ahayd oo cad baan hayaa baaritaan aan cid alla cid la weydiinaya ayna jirin warkii oo cad baan idin hayaa waxa kaloon rabay inaan kalmad ku idhaahdo dawladda Djibouti hore waxaan u sheegay in la rabo boorka shidaalka in la gubo oo dad wadaniina oo reer Djibouti oo og ayaa ii soo sheegay in la damacsan yahay in la gubo ragaana loo isticmaali doono meesha haysta iyo dad kale oo ka imanaya gabiile loo isticmaali doono hore waanu sheegay laakiin leeyma dhageysan in la rabo boorka in la gubo laakiin Djibouti waa meel aad u nasiib wanaagsan oo kama aysan dhicin in boorka shidaalka la gubo waayo haddii ka la gubo wadanka dhan uu rogman lahaa hatta ninka security-ga dalka haysta waanu sheegay halkan aan fariin uga diray xasan Saciid la yiraahdo oo meeshani baylah baa ka jirta boorkii Djibouti baylah baa jirta meesha baylah baa jirta laakiin waxa laga yaabaa in iyagu hadda dad way daaleen bar maleynaya inay shaqadan qabtaan dad ka daalay inay yihiin baylah muuqata ta kale qaar baa sita cajalada aanu aan leeyahay oo halkan soo dhigaabanaya dharaar marka saaxiibada waxaan u sheegayaa horta nolosha waad ka dhacdeen oo saaqidin baa tiin oo nin kale warkiisa lama idaan wareegteen haddaydan saaqidinayn Ismaaciil Margalena dhawaan baan u tagayaa Djibouti waxaad arki doontaan anagoo sanka iska dhukanayna sida boqortooyada Sacuudiga oo kale amba Imaaraadka sanka iska dhukanayna aad arki doontaan waxba ku daalina arrinkaas aniga Ismaaciil maanta meel baan u wada jeednaa gacantadeeda midigna weeye Ismaaciil maamulka aan wadno hawlaha aan ku jirno isaga ayaa hormoodno marka maanta waa iftiin baa anaga noo yahay indhahan bili aadanku waxba lagu ma arko kaligeed iftiin baa wax lagu arkaa haddii aqal madow lagu xidho waxba arki maysid laakiin indhaha bili aadanku iftiin baa wax ku arkaan marka waxaan leeyahay Ismaaciil wuxuu noo yahay anaga iftiinkii indhaha yaga iyo aqligayga wax ku arkay ayuu noo yahay maanta markaan u soo laabto meeshan masiibada ka dhacday ila doonayay in shidaalka haamaha shidaalkana la gubo aan u soo noqdo waxa jira gabadh la yiraahdo Fadhiya Jaamac Omar waxa la yiraahdo waxay ka mas'uul tahay shirkad la yiraahdo Omar Group waxay soo diiwaan gelisaa markay shaqada u baahato 10 qof bay soo qaadataa xafiiska shaqada oo sharciyeysan bay ka soo qaadataa 50 qofna way ku soo dartaa qaar meel u fadhiya iyo kuwa meel la yiraahdo guriga hooyooyinka daba fadhiya iyo arxiba ayaa laga soo qaadaya 50 qofna 10 ka ma ahina 50 marka la celiyana waxa soo hadla ninka Maaweel la yiraahdo oo u sii daayay waqti badan u sii daayadaas ku socota laakiin markii dambe waxay ku heshiyeen Maaweel iyo nin Loom la yiraahdo isaga ku xiga oo ragga meesha iskaga sareeya in wixii Ciise aba laga bedelo halkaas albaabka Ciisaba in laga kaxeeyo oo saddexda shiftiba ay yimaadaan niman habara wala reerebel ay yimaadaan si ay hawshan amba shaqada halkan laga wado amba shirqooladani u socdaan marka dhamaantood waa la bedelay waxa loo bedelay boorka Dooraale halkanna waxa la keenay reerkii kale hawshu saas bariyadan u socotay markasta ay soo galayso waxay wadadaa 50 qof oo shaqa aan shaqa ku lahayn boorka oo iyadu wadato albaabkana toos bay u galayaan marka meesha waxa ka muuqata inay taallay meesha baylah inuu daranyo meesha daranyiri ka jirta muuqata marun buu arki lahaa haddi wuxuu leeyahay meesha kamera CCTV baa ku xidhan haday ku xidhan tahay maxaad arki weyday meeshan bilaha dhan laga adeeganayo ee 50 qof maalin walba la keenayo bila sharciga boorka la keenayo maxaad arki weyday maxay macna sameynaysaa imika hadaad aragto waxa loo macna sameynaysaa ma jiro adiga iyo gooshe labadiina ugu horeeya dib meesha loo haysta damiga waa idinka qolada marka wax gubtay waa gabadhaas tiimkii ay keensatay meesha dadkii meesha ay keensan jirtay ee sharci darrada ku keeni jirtay weeyaan ku wax gubay boorka kiishadalka maaha waa boorkii kale ee cashuuraha ka caagara way ka gubtay marka ilaahay baa ka badbaadiyo wax sidaas ma aysan dhicin sala sheegayo laakiin isku dabeehay Soomaalidu waxay tiraahdaa ninkuu digay kuma dil amba ninka kuu diga loo digay waa laba nin ayaa Faransiiskuna yiraahdaa boqol jeer baan u dignoon war meeshan halis baa ka jirta boorkani Djibouti halis baa ka jirta sideed u aamini kartaan reer isku wada family oo deegaanka Djibouti ahayn inay boorkani iyagu maamulaan madax ka noqdaan oo meeshan isheena qura ay noo shaqeynaysaa tahay oo waliba competition wala jira dad aynaan jecelayn annaga eed aragtay waxa ka dhacay gabeelay aad arkaysaan ha gubato waan gubaynaa boorkii Djibouti gubtay wixii aad arkaysaan
sidaad ugu aaminteen taasi waa baylaha ka timid xagga dowladda Ismaaciil Margeele inuu og yahay iyo in kale war kama hayo laakiin haddaanu ogeynna iminku ogaanaya xasan siciid oo haddaanad ogeyn 10 jeer ka badan intaan anu ka hadlay arkaas in adigana fariin kuu soo diray waxaan maleynaa xasan siciid oo waa daashi adigu shaqadan hadda waad ku daashaan maleynayaa waxay u baahan tahay dhiig cusub bay u baahan tahay waayo boorkani hawshiisu iyo baylahadiisu muddo badan bay socotay raggan meesha madaxda kaayna waa rag shaqaysta weeyaan oo dhaqaale in la siinayana waa suuragal waayo waxaasi kama dhicin laakiin maanta wuxuu leeyahay xaddi CC camera ku xidhanoo taasaan eegayna maxay macna samaynaysaa biladan bay sidaa un hayeen baa laleeyahay dadkii meeshan joogay ee ka shaqaynayay ee waddanka u dhashay waa laga wada bedelay saddexda shiftiyo waa reer dadkan soo gelinaya dadka baabuurta ku wada tareelayaasha ku sidana waa reer kuwan security-ga ilaalinayana waa reer sayda marka u dhacaysa meeshan adaa joog oo mas'uulka waxa jooga ninka la yiraahdo meesha isagu ku gaboobay ee la yiraahdo gooshe isna uu jooga marka da Ismaaciil Margeele xafiiso lama fadhiyo dad buu u egmaday dhulkani inay ka shaqeeyaan oo ilaaliyaan oo nabadda ilaaliyaan oo sharci bay u sameeyay laakiin sharciga kuma idaan shaqeynayna waad ka caajisteen shaqadani waxbana kama idaan qabanayn reer baa idinla wareegay waad iibiseen dhulkani marka hadday dowladdu wax ka qabanayso sharciga hala mariyo kuwaas gabadhaas iyo tiimkeedii baa gooyay meesha maalin kastoo ay meesha imanaysa saas u keentaa dad boor walba iyaga ayaa ka mas'uula meel kastoo boorba dumarkaas ka mas'uula iminka boorka la yiraahdo meesha la yiraahdo Japan saldhiga Japan ay leedahay islaam baa ka mas'uula la yiraahdo Safiya oo la yiraahdo baarlamaanka gudoomiye ku xigeenka tayada ka mas'uula wixii shaqa iyo wixii laga qabanayo iyada ka mas'uula waxaana iyadna u sii wakiilatay islaan la yiraahdo Heblaayo Buur oo iminka gabile kuma qono dadka keenaysa way shaqaale u baahan yihiin marka waddanku sidan kuma shaqeynayo sidan madaxweyne sidan dalkani kuma shaqeynayo sidan dalkani ku sii jiri maayo degdeg baa loo baahan yahay dhiig cusub in la geliya loo baahan yahay dad cusub inay shaqada qabtaan baa loo baahan yahay dadkan iyo dadkani way isbarteen wayna daaleen way caajiseen iminka gooshe 46 sanadood buu joogaa boorka waa dad daale marka dowladdu inay wax ka qabato loo baahan yahay haddaad wax qabanaysaa way dhika saasay wax u dhaceen wanagaa sheegnay cidda meesha gubtay tiradoodu intay ahayd halkay ka soo galeen siday u yimaadeen marka xadiyow CCTV uma baana warkaas uu cadiye soo hubay inay maalmo 50 qof keenayso islaantaas oo gabile laga keenay oo meesha ay ka soo qaadayso hooyooyinka ayaa lagu soo ururinay bilaa sharci ku galay boorka waxay xidhan yihiin war kama inaanayn inay bamsitaan war kama hayn cidima baari karay reerka baaray waa isla iyagii saddexda shiftiba iyaga ahaayeen saysaas dalka uga dhacday xadiyo adiga gooshe baa la idinka rabaa madaxweynuhu waa inuu idin weydiiyaa waxaas soo dhaceen aad baan Soomaaliya idin salaamaya waxaan rabaa masiibadii meesha ka dhacday ayaan nagu iskayo soo baadhnay sidaas aynu wax u dhaceen negligence waxa la afka Ingiriisiga lagu dhaahdo waxa baylah dayacaad baa ka dhacday maamul dadkii mas'uulka dalka ka ahaa ayaa dayacay inuu dabkaasi kaco dayacaad buu ku yimiday waxa kaloo dhici karta Soomaaliya inay gubtaan haamaha shidaalka oo hore u sheegay oo dad la rumaysan karo oo dalka reer Djibouti oo dalkan og aniga ay soo sheegeen in lagu tala jiro waxaas oo intaa waxaana madax ka ah ninka safiirka oo Djibouti ee Addis Ababa jooga oo shalay maahna daraad buu ku yimid daloon xaggaas ka soo noqday marka dalkani waa dal loo tashaday ilaahay bay leeyihiin reer Djibouti aad baa idin salaamaya hadhow tole marka la kala wareegana reer Djibouti ciisow hadhow tole marka la kala wareeg ilaahay ka yaab baad ku dambayn doontaan hada dalkiina eegana weydaan Ismaaciil Margeele indhab waxaan meeshii Steve Bulo dalka dhanba ku ilaalinaya sheega war kuwan boor ka shaqeeyo sheega marka la idinka bedelayo ee meeshii sidan loo galay maxay sheegay waa dalkiini baa la shurqoolaya sheegi leeyahay annaga noo soo sheega haddaad ka baqdaan shaqada la idinka yeeyo annaga noo soo sheega annaga ku eedaamayna annaga noo soo sheega aad baan idin salaamaya